barnaamijkii taariikhda filimada. Maanta waxaan rabnaa inaan uga hadalno filimka caanka ah ee The Fire kaas oo soo baxay 19 Febraayo 1999. Filimkan The Fire daqiiqadaha uu soconayo waa 1 saac 66 minute. Filimkan waa filim action ah. Waxaa actor ka ah filimkan Sanjay Dutt, waxaana ku heliyay actorada kale ah Jendrajor Singh ay Soomaalidu u taqaano Tora Indhabuurka iyo gabadhii caanka ahayd Mahima Jadri. Gabadhan waxaa lagu xasuustaa filimkii jaceylka ahaa ee Bardeysi ee Shah Rukh Khan la baday. Filimkan waxaa director ka ah Raj Kumar, waxaa isla producer ka ama soo saarana ka ah Raj Kumar, halka muusikiisu uu yahay Rajesh Roshan. Lyricska ama qoraaga filimkan waa ninka caanka ah ee Sameer. Haddaba sidii buu filimkan ku noqday hit? Filimkan waxaa la saaray tiyaatarro dhan 210 tiyaatar. Lacagaha lagu kharash gareeyay waa 6.75 karoor. Lacagaha uu keenana waa 11.45 karoor. Lacagahan haddii lagu jaangooyo qiimaha maanta waxay u dhigantaa 88.67 karoor. Lacagaha uu keenay canshuurta ka hor waxaa weeyaan 19.69 karoor. Dadka tigidhka u goosta filimkan waxay gaarayaan 9,574,000 oo shakhsi ama dad. Lacagaha ay ka heleen dadka canjaladaha qeybiyo waxaa lagu sheegay 6.39 karoor. Natiijada filimkan waa filim hit ah ama filim guuleystay. Halkaas ayaan kusoo gabagabeynaynaa taariikhda yareed aan uga hadlayna filimkan caanka ah ee The Fire.